السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوديال كسو دوادا تبينتينا برنامج كالصوماليا إي سياسة هبين والباح ليضان وكالي أيان هالكن وهاقا ميديا إذن كوكسو قدبنا قضبادا وقوا وين إي برنامج كينا ينكو قادا ديجي دونو أيا وحا كميدا حسن علي خيري أو حل مهمة حلقان كهليا دولد عصب إي وديسيو مدحويني حسن شيخ محمود حلبان ماري أو furka tuurtay isla markaana sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud durbadiiba inuu bilaabay u awood sheegashada dad gaar ah goormee ayuu dhacayaa caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa wasiirka shaqada laga joojiyay ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo magacaabay safiiradda Soomaaliya u fadhin doonta Geneva iyo muran xoogan oo ka taagan gudaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh waxa uu qaabilay wafdi caalami ah tan iyo markii uu si rasmi ah ugu wareegay dhinaca villa Soomaaliya haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe dhee gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like dhee muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebook inaad kusii share garayso ayaan kaa rajeynaynaa waa habeenimo ay sii baxayso arbaco khamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 25 bisha May sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay waxaa lagu waramayaa xasan cali khayre in uu rajo badan ka leeyahay in xil muhiim ah uu ka helo dowladda cusub ee uu dhisayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 15 bishan lagu doortay tendhada Afisiyoni ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali khayre ayaa la soo sheegaya inuu jago sare ka heli doono dowladda cusub ee xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo khayre oo ka mid ahaa musharaxiintii ka sameeyay tartan adag doorashadii madaxweynaha isla markaana gaaray wareegii labaad ayaa waxa uu hadda yahay mid sugaya in loo magacaabo xil muhiim ah oo saameyntiisa sare u sii qaadi karta inkastoo xogta la ogaaday ay sheegayso in khayre uu ka soo bixi karo jagadaas haddana waxaa si gaar ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u naasnuujin doonaa xubno badan oo golaha midowga musharaxiinta ka mid ah oo si weyn ugu taageeray in xilkan uu ku soo baxo xasan cali khayre ayaa laga dhigayaa sida wararku ay sheegayaan la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha ka caawinaya sidii deyn cafinta Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira shidaal baarista qaranka loo sii ambaqaadi lahaa dhinaca kale la taliyaha gaarka ah ee dhinaca dhaqaalaha madaxweyne xasan ayaa waxaa lagu magacaabi doonaa xasan aadan hoosow oo ay walaalo yihiin musharaxii madaxweyne cabdi aadan hoosow wararka qaar ee la helayo ayaa intaasi ku daraya in la taliyaha dhinaca sharciga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u magacaabi doono garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan oo horey u soo noqday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya waxaana xasan sheekh maxamuud uu u muuqdaa inuusan ka bixin balamihii horey uu la galay saaxiibadii sida weyn ugu soo halgamay in halkan uu soo gaaro oo markaasi codadkooda ku taageeray markii wareegga saddexaad ay isla aadeen isaga iyo Farmaajo dood culus ayaa ka taagan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya isla markaana wasiirkii shaqada laga joojiyay ayaa isku dayaya in saameyntiisa uu sii wado iyadoo sharciyan loo arko ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in awood uu u leeyahay in shaqada uu ka joojiyo wasiir Cabdi Saciid oo ka mid ahaa dadkii sida gaar ahaaneed uga amar qaadan jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta xafiiska uu joogay isqabqabsi gacan ku hadal ku sigtay ayaa maanta ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib muran soo kala dhex galay wasiirkii shaqo ka joojinta lagu sameeyay ee wasaaraddaasi Cabdi Saciid Muuse Cali iyo wasiir dowlaha Balal Maxamed Cusmaan muranka ayaa bilowday markii labada mas'uul ay isku qabsadeen cidda go'aaminaysa shir ay lahaayeen agaasimayaasha waxayna wasaaradda maanta martigelisay khilaafkaas aadka u xoogan iyadoo uu doonayay wasiiro dowlaha in isaga uu gudoomiyo shirka halka wasiirka uu yiri aniga ayaa gudoominaya warka ayaa intaasi ku daraya in wasiir Cabdi Saciid Muuse Cali uu soo galay qolka shirarka wasaaraddaas oo uu ka socday shir ay lahaayeen agaasimo waaxidyada wasaaradda isagoo ku amray wasiiro dowlaha oo shirkaas gudoominayay in uu ka baxo hoolka isaguna uu xaq u leeyahay inuu gudoomiyo shirka maadaama uu yahay mas'uulka wasaaradda ugu sareeya oo wasiirka ku magacaaban hase ahaatee waxaa intaasi
kadib dhacday in si weyn uga soo horjeestay Balaal Maxamed Cusmaan dooda uu keenay wasiirka shaqada laga joojiyay. Muranka ayaa gaaray meel adag iyadoo labada mas'uul ay isdhaafsadeen erayo kulkulul oo sababi gaaray in gacan ka hadal halkaasi uu ka dhaco. Ra'iisul wasaaraha ayaa go'aankan sabab uga dhigay in wasaaradda arrimaha dibadda ay fasaxday markab siday dhuxul si sharci darro ah looga dhoofiyay dalkeena oo ku xayrnaa dalka Cumaan. Hase ahaatee waxaa arrintaasi sidoo kale ay dhalisay shaki aad u xoogan. Dhinaca kale, wasiirka shaqada laga joojiyay ayaa magacaabay safiiradda Soomaaliya u fadhin doonta Geneva. Warbaahinta ayaa waxay heleen warqad muujinaysa in wasiirka shaqada laga joojiyay Cabdi Saciid Muuse Cali uu magacaabay Abyan Maxamed Saalax inay tahay safiirka aan degnayn qaramada midoobay ee Vienna, Australia. Representative to UNOF ayaana lagu magacaabaa warqadda uu qoray International Organization, waxaana uu sidoo kale ku sheegay inay qaabilsanaan doonto hay-adaha caalamiga ah oo dhammaan ay ku matali doonto Soomaaliya sida United Nations Office in Vienna, kuwaas oo kala ah UNIDO, UCTBTO, IAEA, UNODC iyo kuwo kale oo fadhigooda uu yahay Vienna, Austria. Sida warqadda magacaabista ku qoran ee uu sameeyay wasiirkii shaqada laga joojiyay ee dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha dibadda u qaabilsanaa, waxa uu ku muujiyay in awoodiisa uu gabadhaas uga dhigay safiir, laakiin taasi waxay u muuqataa sida dadka sharciyaqaanadu ay qabaan inaysan shaqayn doonin maadaama wasiirka uu yahay nin xilligan shaqada laga joojiyay oo howlgab ah, wax haba yaraatee dhaqdhaqaaq ahna aan samayn karin. xildhibaan Maareeye ayaa furka tuurtay islamarkaana sheegay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud in durbadiiba ay bilowday awood sheegasho aad u xoogan. xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya kana tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa ka falceliyay hanaanka wasaaradda diinta oo qaafta ay u kala xakameysay shirkadaha duulimaadyada sanadkan xujayada u qaadaya dalka Sacuudiga. wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Maareeye ayaa wax laga xumaado ku sheegay in shirkado ilaa iyo dalka dowlad la'aan ah ay soo shaqaynayeen ummadana ay garab taagnaayeen xilligan laga reebay in ay dadka u daabulaan xajka. waxaa nasiib darro ah in xilalka dowladda laga dhigto awood lagu dulmo dadkii Soomaaliyeed ee loogu talagalay in loogu adeego. waa nasiib darro in dadkii xujayda ahaa ee loo khidmayn jiray si ajar looga helo in hadda laga dhigtay xoolo la kala iibsado oo lagu dhibo helista fiisayaashii ay ku dhoofi lahaayeen. tusaale ahaan, waa damiir xumo mas'uuliyadeed in Daalo Ireland oo leh dhowr diyaaradood islamarkaana ahayd shirkadii burburkii 1991 kadib si hagar la'aana ugu adeegaysay shacabka Soomaaliyeed oo 10 sano ku dhowaad ahayd shirkadda kaliya ee isku xiraysay Soomaaliya iyo caalamka la yiraahdo ma jirto oo waxba ma laha. dad suuq joog ahna la siiyo fiisayaasha dhowr boqol oo xujay ah si ay hanti uga sameeyaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhowaan loo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaanu ka codsanaynaa inuu soo farageliyo dulmigaas oo shirkadaha diyaaradaha loo qoondeeyay sicir go'an in lagu wareejiyo in xujayada ay ku qaadaan. waxaana uu tilmaamay intaasi aysan ogolaanin haddii ay yihiin dadka ka soo jeeda Somaliland oo ay sii cambaarayn doonaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku qaabilay Villa Soomaaliya wafdi caalami ah oo ka socday Midowga Yurub. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada dalka kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika Marwo Annette Weber, waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan isdhexgalka xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Midowga Yurub. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Marwo Annette Weber ayaa ka wada hadlay dib u soo celinta taageerada Midowga Yurub ee Soomaaliya iyadoo ay soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay in Midowga Yurub ay garab istaagaan dowladnimada Soomaaliya ayna ugu hambalyeynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in mar kale xilka uu ku soo laabto. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Marwo Annette Weber ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya Midowga Yurub iyo Soomaaliya. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay siiyaan Soomaaliya.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in lasii ambaqaadi doono lana horumarinayo qorshayaasha dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka si loo dhammaystiro dhammaan shuruudaha ku xeeran arrimaha deyn cafinta ee dalkeena. waxaana sidoo kale arrintan ay ku soo aaday xilli 17 bishan ay ahayd markii ugu dambeysay ee dhammaanba hay-adaha lacagaha ugu deeqayay Soomaaliya ay sheegeen in lacagaha ay joojin doonaan haddii Soomaaliya aysan ka dhicin wax doorasho ah. laakiin nasiib wanaag 15 bishan ayay ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho doorashada madaxweyne, taasi oo muddo soo jiitamaysay. waxaana sidoo kale arrintaasi ay sabab u noqotay in 2 maalmood kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka codsado dhammaan hay-adihii gargaarka lacagta siin jiray Soomaaliya in ay waqti ugu daraan xilligii ay joojin lahaayeen si wada hadallo loo bilaabo. guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda Haga Media ayaad ka daawanayseen. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanidin.